daawadayaal ku soo dhawaada warbixin aan idinka hayno beerta lagu xanaaneeyo libaaxyada Ariel TV oo saaka ku hurgalay wax ka ogaanshaha xanaanada libaaxyada iyo sida loo daryeelo ayaa idinka soo diyaariyay warbixin ku aadan sida libaaxa loo daryeelo isla markaana cuntooyinka iyo dawooyinka loo siiyo looguna maydho beerta lagu xanaaneeyo libaaxyada ayaa waxa ugu horeyn lagu soo dhaweeyay mulkiilaha hoteelka la cawee libaaxa Cabdiqani Cali Maxamed Waran Cadde oo la saaxiib ah libaaxa isla markaana la ciyaara waxna siiyo una maydha waxaanu warbixin naga siiyay sidii libaaxa loola macaamilo iyo sida loola noolaado Cabdiqani Waran Cadde waxa kale uu noo sheegay in libaaxu aanu cadow ahayn marka la daryeelo balse dadka aan aqoon u lahayn ee aan afgaranayn iyo kuwa cadowga ka dhigta uu la coloobo Cabdiqani Waran Cadde asagoo bulshada la hadlaya waxa uu sii carabaabay inay ilaaliyaan anshaxa libaaxa iyo borotokoolka halka uu ku jiro أكون وعيدة ولا عيدة بس نقول نسار ما لوس فيديو الله ها نفس كلامه ودي سبزي نولي بسير أنا وايد يا أنا قلت أنا مقصد أنا سبحان الله ما كنت أصيصه ما يقدر يسوي عليه وش بقي يكني وش بقي يلعب عشان كذا بقى سوق الجديد حوق هذا سوق والله فرحة هرنا وقص أنت نضيف كسي صديق ورعد مس بس وصوح بك فراق إني مو محمد سنة ما برد شو ما شو حرام مرة حرام أقوى سوينا كذا
لا وش بيقولنا طويل سبحان الله علي لبس القصب بنام شنو حسين السفي يقرأ ساكو اريال تي في waxaan kugu soo booqanay xaruntii libaaxyada bal faahfaahin naga sii sidaad wax u siisaan iyo sidaad ugu meedhaan iyo sidaad ula macaamishaan bismillaahi raxmaani raxiim cabdi samed adiga iyo kooxdaada groupkaaga Ariel TV aad baan nii soo dhaweynayaa waxaan igu soo dhaweynayaa beerta libaaxa ama Hargeysa Zoo gacmo furan iyo niyad furan ku soo dhawaada ayaan leeyahay waana mahadsantahay walaal su'aashaada haddaan dib ugu laabto libaaxa waxaanu halkan aan ku haynay horta ilaa muddo 3 ayaa halkan ku haynay libaaxa odaga aabahay baa libaaxan soo dhaqday soo barbaariyay hayay halkan ku hayay markaa libaaxa waxaan u aragnaa mid waana ku hadlaynahay maaha waxa weyn waa hanti qaran baan u aragnaa Somaliland leedahay maadaama muxuu ahaa Somaliland libaax aysan oolin oo halkaan waxaan ku dhaqno libaaxa sabaas awgeed bay hanti qaran u tahay anaguna farxad bay noo tahay inaan halkan aan ku dhaqaaleyno ku alaalino ku hayno wadamaha jaarkaan nahay qaarkood baaba libaax haysan markaa walaal horta taa weeye libaaxa maal subax walba ay horta raashin ka siinaa subax walba raashin baa la siiyaa waxaanu daryeelnaa nadaafadiisa waxaanu daryeelnaa caafimaadkiisa waxaanu jecelnahay libaaxa imika halkan waxaanu ku haynaa ilaa 7 aan ku haynaa labo aanu beri hore aan siinay odaga bahay hadiyad ahaan u siiyay madaxweynaha Djibouti Umar Geele walaaltinimo imika waxaan doonaynaa inay 7 imika halkan ku hayno inay ka sibataan sababaha aanu doonayno inay ay ugu sibataan waxa weeyaan in Somaliland laga weynin in libaax adigu carruurta dhali doontid kuwii si dhali doonaan waxaanu jecelnahay inay libaax ay Somaliland kala kulmaan oo ku arkaan marka intaanu ka badan jecelnahay saad u aragtid waxaanu halkan inaan quraan ku haynaa
inta kalena waa rag weeye marka waxaan jecelnay inaanu keeno laba inamo hablood si ay libaaxyaashu ay u bataan aysan ka bargo-in Somaliland waa cabdi qani imika waa cuntadii baa si soo cunaya marka aad waxaad sheegtay in loo meedho nadaafadiisa ilaalisaan markaad u meedhaan qofkan u meedhay ma dhibaato kala kulmi karin walaalmay oo inaan meesha ka shaqeeyo ayaa meesha jooga waxa weeyaan muddo ayuu halkan ka shaqeynayay libaaxa way isbarteen ayagoo yaryar buu muxuu ahaa soo hayay marka waxa weeyaan libaaxuna qofka ay isgaranayaan ama ay isbarteen waliba ay si wanaagsan isku barteen haddaad libaaxa aad u wanaagsantahay ku wanaagsanaanaya haddaad laakiin aad u xun tahayna waxa weeyaan lagu ku kala goynaya marka inanka libaaxa run ahaantii u wanaagsan yahay nadaafadda iyo raashinkiisu siiyaa laakiin waxaan oran karaa shakhsiga qura libaaxa isfahmaan libaaxa is afkartaan waxa weeyaan wadaga Abahay Cali Maxamed Waran Cade asagu albaabka qufulkaas halka ayaa laga furaya libaaxii oo halka ku wada jira ayuu hal mar u geliyaa dhamaantood markay ay arkaan ku soo wada cararayaan waxay og yihiin inuu asaga soo dhaqday oo soo magaran soo korsaday oo saaxiib leeyihiin deetan markay ku soo ordaan buu hadana uu wada salaaxayo dhamaantood uu wada qanciyaayo marka shakhsi qura oo meesha u gali kan libaaxa isfahmayaan waxa marmar baan isri odaygu show luqad khaas ah libaax u khaas ayuu la garanayaa marmar baan isri marka horta taa way walaal xalay kale qof sidaan ma dhaawacay marka wuxuu kamid ahaa shaqaalaha meesha dadkan shaqaaleena way yihiin waana maxay tolay si qaldan bay u taabanayaan dadka ka waraya ka caafimaadkiisana ka waxyeelay wal horta libaaxu in la taabto ma wanaagsana in muxuu ahaa la dhibana ma wanaagsana marka inanka shaqaalaha khalad buu yar sameeyay libaaxu halka ku jira ayuu gacmihii magaranaysa ayuu yara galgaliyay dhaawac yar oo ka soo yargaartay baa yara jirtay marka halka waxa ku qoran walaal digniin baa ku qoran aan halka ugu tala galnay digniinta waxay sheegaysaa in libaaxa loo dhawaanin oo gacmahana loo galgalin oo laakiin halka laga daawado farin gaar ah waxaan u farayaa dadka weynahana daawanaya sharafta leh ee noo imanaya aanu doonayno qalbi furin niyad furin aan ku soo dhaweyno in ay markaa ay yimaadaan libaaxa gacmahooda ay ka alaaliyaan soo dhawaashaha ay libaaxa ku soo dhawaanayaan ay ka fogaadaan ayaan doonayaa inaan u soo jeediyo ay si wanaagsan u daawadaan halkana beerta libaaxa ku soo dhawaadaan saasna waan la yeelan aad ma mahadsantahay marka toddobadan baa libaax joogo xawayaankii kale asaga laayeen waxaan walaal inoo joogo kale harimcad baa noo joogta halka mar waxaan ku haynay saddex baan ku haynay laba yaral dhintay mid baa halka ku joogay marka waxaan doonaynaa aan jecelnay inta inaan ka badino oo xayawaano fara badan oo kala duwan nooc kala duwan aan keeno marka hadafkana taaway imka libaaxa ciiba maqata waxa weeyaan waa farxad u ciyeeyaan khaasatan adigu salaamaya maadaama adigu marti noo tahay wuxuu ku leeyahay ku soo dhow beerta libaaxa marka xayawaanadan kale imika marka midbilintan keentaan harimacadka kale ama shabeellada kale ama bisada yar meelahan marayo kale markay soo wareegaan meelahan marmarayaan ma qabsadaa ma horta harimacadku halka ma yimaado meel buu ka xiran yahay harimacadkana kuma dhaco inuu halkan soo galo halkaas uu ka daawaday markuu arko libaaxa muxuu qaciya ama muxuu soo yar kacaya hoos buu isku dhigayaa asagaaba baqanaya marka halkan kuma soo dhaco halkaas ayuu joogaa asagu marka asagu rabaayad ma yahay asaga waa rabaayad weeye waa rabaayad aad iyo aad u wanaagsan weeyaan waxa kuma yeelayo
asagoo yaroo baby ah ayaanu soo korinay soo haynay markaa waa rabaayad asal ah wey. dhinaca kale waxaanu socod ku marnay aniga iyo mulkiilaha hoteelka Lacawe ee Libaaxa Cabdiqani Cali Maxamed Waran Cadde. hoteelka la magac baxay Lacawe Libaaxa oo ah hotel soo jiidanaya indhaha shacabka isla markaana ah hotel dalxiis. Cabdiqani waxa uu faahfaahin naga siiyay hoteelka iyo sida uu shaqeeyo asagoo oo na sheegay in ay u diyaar yihiin shacabka reer Somaliland soona dhaweynayaan. mar labaad waxaan soo kormeernay hoteelkii alxamdulillah waa hotel weyn maxay tolay halkan waxa weeye meelii dadku dalxiisyada iman jireen ay ka cuntayn jireen marka ay goorma hotel ka furteen samac meesha maxaa ugu tala gasheen maadaama hotelkiina libaaxyaduna magac darteen bismillaahi raxmaani raxiim walaal horta hal restaurantka ama hotelkan waxaan furnay ilaa muddo laga joogo 4 bilood ay halkan furan tahay waa restaurant iyo cafe saddexda waqti raashinkooda waa laga helaa qado quraac qado iyo casho waxaan furnaa 8 subaxnimo waxaanu xirnaa ilaa 2 habeenimo way furan tahay waa laga casheeyaa marka walaal waxaan leeyahay waxaan doonayaa daawadaha qiimaha badan daawanaya inay ku soo dhawaadaan beerta libaaxa ay noo yimaadaan halkan nala arkaan waxaan doonayaa martida sharafta leh noo imanaya
inay ku soo dhawaadaan horta waxaan ugu magac darnay lacasha libaaxa martida noo imanaysa oo halkan ay ka casheynaysa iyagoo casheynaya bay libaaxina la casheynayaan dadku waxaa jira deynta badan way baqaan dadka badankooda way cidiisoo kale cidiisana markuu dhulka gariiro doo waynu aragtaa way markaa dadkii oo casheynaya problem ku noqon kartaa ma gariiri marka dhulkuna gariiro qaar maana ka yaacin shalay qolo muxuu halkaa ku casheynayay oo la cashay libaaxa oo halkaa libaaxi iyo iyagoo wada casheynay wada fadhiya ayaa jirtay mar buu libaaxi ciyay ayuu bilaabay martidii meesha fadhisay waxay jiraan libaaxi baa soo baxsadayba mar bay kuraastooda ka yar kaceen oo yara baxsadeen marka waxaan ku dharamay libaax soo baxaye markuu ciyo farxad ahaan iyo iyagoo wada sheekaysanaya ayuu ciyaa marka luqad khaas ah ay ku wada hadlaan way marka luqadooda way markay ciyayaan marka habaqayna baan ku niray iska friista cashadiina iska wata shacabkan idii imanaya amniga ahaan xagga amniga inteen leeg baa ugu tala gashay amnigiisa walaal horta amniga meeshan aad bay u adag tahay amnigeedu way wacan tahay way wanaagsan tahay waxaa ka shaqeeya shaqaale hufan muxuu ahaa amniga u hufan soo dhaweynta u hufan martida imanaysa u hufan marka waxa weeye shaqaale tababaran weeyaan hadday noqoto xagga amniga iyo xagga kalaba shaqaalaha marka walaal amnigeeda aad bay wanaagsantahay wax walwala halkaan ka hayno ma jirto wax dhacayna ma aysan jirin aad iyo aad baan u walaalinaa caynka way walaal maadaama hoteelkii ugu magac darteen la cashay libaaxa Somaliland waxa la oran karaa waa bilic aynu dheerahay dalalka kale dalka shacabka Somaliland maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa in ay soo booqdaan inoo kaalayaan ay beerta libaaxa inoogu yimaadaan gacmo furan iyo niyad furan ayaan ku soo dhaweynaynaa mar uu nala eega meeshan bal soo yara daawada walaal waxaan ka yaray waxa jirto oo kale bishii laba mar waxaan ugu talagalnay xaflado in halkan show inaan ku dhigno aan ku marti qaadno fanaaniin wadanka u dhashay ama fanaaniin khaas guud ahaanba inay yimaadaan oo markaa show ka qabtaan marka hall waxaan ku leenahay halkaas shishe aan ku sii doono aan ugu talagalnay in showga lagu qabto aroosaha lagu qabto xafladaha meetings conference-ka ayaa ugu talagalnay marka taana waanu haynaa halkan ku haynaa taana waan igu soo dhaweynayaa dadkana daawanaya martidana daawanaysa marka taana walaal way jirtaa aad iyo aad ugu mahadsan tahay inaad soo booqateen Ariel TV daawadayaal barnaamijkani waxa ay barnaamijkan ugu talagalnay libaaxyada sida ay bulshadeena u daawato halkan aan ku suganahay waxa weeye beerta libaaxyada halkan aad arkaysaan sida wada arkaysaan waxay leedahay maxay toolay meel lagu casheeyo lagu qadeeyo halkan waxa dhinacna naga xewa libaaxyadii halkan hoolkii shirarka aroosyada loogu talagalay ayaa halkan waxa taagan Cabdi Qani waa wada garanaysan intiina